السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركل كسول هذا يوتيوب channel كيجا أسد دارو جنا وحن ما أنت دي سو ديارني حشمة درين كدتك كله إناد حشمة سو درين كدتك كله ومن ضد هذا كجرتو ما هنين أدوارك إناد dadka ugu danaynayso waa in aad maanka ku haysaa inaad dadka ka mid tahay wax walba oo dadku dhibayaan ay ku dhibayaan wax walba oo aad doonaysana ay dadku doonayaan sidaa darteed qadari qiimaha uu qofku leeyahay xitaa haddii ay ka hormarinayso maslaxadaada qaar maxaa yeelay qiimaha qofku ma ahan wax adiga laga baryaayo waa mid uu siiyay rabbigii abuurtay sidaa darteed waa inaan qof walba qadarina dareenkiisa iyo doonistiisa inaga oo aan ku dabaqayn dareenkeena iyo doonisteena maxaa yeelay wax qiimo kula leh ayaa qofna qiimo la lahayn karin sidaas la mid ah wax aan qiimo kula lahayn ayaa qof qiimo sare la leh haddaba aan isxishmayno oo isqiimayno isna qadarino dareenku ay dadku muujiyaan shakhsiyadaada dhabta ah marka dhanka wanaagsan laga eego waxay kor u qaadaa moralkaaga dadnimo mar walba waxa wanaagsan marka tilmaan aad naftaada ka bixinayso in tilmaanta dadka ay ka aaminsan yihiin ama ay iyagu ku baxsheen aad isku tilmaanto maxaa yeelay waxa aad wax u tilmaamayso waa iyaga sida ay iyagu wax u doonayaan inay u dareemaan ama ay u arkaan inaad wax ugu sheegto waxay qayb ka qaadataa isfahanka guud sidaa darteed tilmaamta naftaada mar walba heerka ay taagan tahay dhanka bulshada aad ku dhex nooshahay ka eeg oo ha noqon qof tilmaamayo wax aan la aqoonin ama aan la ogeynba xusuus celinta dib u celinta xusuusta ma ahan mid sida badan saameyn kaga yeelan karta nolosha aad waqtigan ku jirtid sida ay tahay haddana xusuusta wanaagsan in dib loo milicsadaa waa mid iska wanaagsan oo dhista niyadda sideedaba tala ahaan qof aan kula talin lahaa inuu dib u qoraansado xusuusihiisa hore ma jiro haddana waxaan dhihi lahaa haddiiba ay jirto duruuf keenaysa in dib loo celsho xusuusta waa in xusuusta wanaagsan la xusuustaa oo kuwa xun aysan qayb ka noqon sakan ka mid ah noloshaada haddaba waxaan ku dhihi lahaa dib ha isku celinin ilaa ay jiraan wax munaasab ah u noqon kara dib u dhaca noloshaada ama dib u noqoshadaada marka aan sidaas dhahayo waxaan ugu dan leeyahay waa inay noqotaa xusuus celintaada mid aad ka heli karto wax soo jiita naftaada waxna kugu dhiirigelin kara quruxdaada joogteynta isqurxinta qofka waa mid qayb ka qaadata kor ahaanshaha niyadda qofkaasi sida badan oo aad isku habayso waa inta badan oo niyadaada ay kor tahay haddiiba marka aad sawir galayso ama xaflad aad aadayso ama casuumaad kale aad muuqaalkaaga si wanaagsan u maxaa diiday in muuqaalkaaga aad sida mar walba u joogtayso u ekaanshihiisa dhabta marka laga hadlo waxaa wanaagsan inuu qofku uusan isku qurxinin dadka sidaa ku dhahaan ama sidaa dadka xaggooda ugu muuqo waxaa wanaagsan qofka marka uu muraayada isku eegayo inuu garowsan yahay naftiisa inay tahay midda qanaacada koowaad leh ee aysan dadku ahayn quruxdaada joogtee si heerka qanaacadaada naftaada mar walba uu kor u ahaado inta badan ee naftaada aad ku qanacdaa waa inta badan oo ay dadku ka qancaan naftaada nabaddu waa shayga keliya uu nool kasta u baahan yahay inkastoo macnaha laga kala fahamsan yahay uu mar walba kala duwan yahay haddana waxaa wanaagsan inuu qofku nabad u helo naftiisa waa laga yaabaa inaad su'aalo iska weydiiso sida qofka uu nabad ugu koobi karo naftiisa taas waxaan kaa leeyahay naftaada xaq waxay kugu leedahay inay nasiino hesho inaad ka yarayso buuqa iyo waxyaabaha kale ee ku guuxaya qalbigaada ma ahan inaad noqoto mid u taagan buuq muran dagaal iyo dood aan dhammaan iyo fikrada mar walba aad ku fikirayso lugooyada ama luqaafada aad qof la maagan tahay inta aad arrimahaas aan soo sheegay aad ku jirtid naftaada nabad ma ahan maxaa yeelay marna adiga ayaa isku maqan marna dadka kale ayaad ku maqan tahay haddaba deji naftaada oo waxay mudan tahay ku abaalmari marka aad fikir badan iyo buuq badan aad maankaaga gelinayso waa inay noqotaa mar aad maslaxadaada ka fikiraysid qiimaha nolosha ayaaba ah mid aan sidaa u badnayn oo aan la ogeyn xilliga uu ku egyahay ama xilliga uu bilaaban karo dumarku waa guusheena
dumarku waa saldhigga koowaad ee kuusheena maxaa yeelay nin walba oo maanta gaaray heer sare qof ayaa ka dambeeya oo ka dhigtay sida uu yahay waa hooyadiisa oo dumar ah waxaa soo raaca xaaskiisa oo iyadana qayb weyn ku yeelan karta heerka uu gaarayo ninkaas hooyada mar walba tilmaanta aan ka bixin lahaa dhankeeda ayaa iska ah dhanka khayrka oo ma jirto hooyo xun waase laga yaabaa in garashada xaggeeda ay hooyooyinka ku kala dheer yihiin dhanka xaaska waxaan dhihi karnaa sida lagu helo xaas wanaagsan oo u taagan horumarka noloshaada gacan kugu siin kartaa in aad tiigsato hadafkaaga nolosha ayaa ah nasiib uusan nin walba heli karin in ninku xaas leeyahay ma ahan micnaheedu inuu gaaray heerka nolosha ugu sareeyay xaasaska qaar ayaa laga ducaystaa oo laga shalaaya qaybta ay ka noqdeen noloshaada gunaanadka hadalkayga ayaa ah in yasmada iyo tilmaan xun ka bixinta dumarka ay nagu yaraato way jiraan dumar wanaagsan sida ay si la mid ah kuwa xun balse waa inaan ogaanaa in saldhigga guusheenu dumarka ay yihiin isa sax adiga qaladaadka dadka ma ahan inay ku muuqdaan marka aad damacdo inaad qof ka waaniso qalad uu ku dhex jiro waxaa wanaagsan inta aadan afkaaga kala qaadin inaad hubiso bal inaad ka daahiran tahay qaladkaas iyo in kale xitaa haddii waayadan dambe aadan qaladkaas samaynin ma yahay mid ka zuulay dhankaaga oo aadan marnaba dib u samaynaynin xaalad kasta haba kuga timaadee haddaba isa sax marka hore kadib marka aad hubsato naftaada ayaad u sii gudbi kartaa dadka kale sixidooda taas waxaa soo raaca in adiga naftaada ay jiraan waxyaabo badan oo aad ka xun tahay kuna qaldan tahay marka uu qof ku waaniyo waa inaad ka qaadataa waanada oo aadan naftaada mahdin una arkin mid ka daahiran qaladka oo dhan waayo waxaan nahay bani aadam fadlan sida wanaagsan aan kuu soo gaarsiiyey u sii gaarsiiye asxaabtaada kale